wacan oo wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkii aan ku eegaynay sida ay Soomaalidu wax ugu bartaan dalka India. qaybtan waxaan ku eegaynaa magaalada Hyderabad oo ay Soomaalidu aad iyo aad ugu badan yihiin. magaalada Hyderabad ee ku taala koonfurta dalka India ayaa waxaa jaamacada ka dhigta arday Soomaalidu gaaraysa 800 ilaa 1000 arday. ardada ayaa waxay kala dhigtaan jaamacadda Cusmaaniya, jaamacadda Sikimarbal iyo jaamacadda GNTU. sanad kasta waxaa ka qalin jabiya magaalada Hyderabad arday gaaraysa 25 ilaa 30 arday. sanadkan 2009 waxaa ka qalin jabiyay 35 arday oo iskugu jira master iyo degree intaba. ardada ayaa sanad kasta waxay xaflad ku qabsadaan magaalada Hyderabad gudaheeda. sanadkan ardada xafladda waxay ku qabatay isla magaalada Hyderabad. gabagabadii xafladda ayaa waxaa ii suura gashay in aan dood gaaban u qabto ardadii qalin jabisay iyo arday kale ayagoo ku dhex jira waxbarashadooda. sidoo kale waxaa dooda caawa marti ku ah arday kaloo ka timid gobolada kala gedsan dalka India, gaar ahaan magaalada Madras ee gobolka Tamil Nadu koonfurta dalka India. ardada caawa martida barnaamijka nooga oo dadka ka qayb qaadan doonta ayaa waxay kala yihiin Muxubba Faarax oo baratay maadada biotechnology, takhasuskeedana uu noqon doono maadada genetiga. sidoo kale waxaa asna ku xiga Libaan Sheekh Xasan oo ka yimid magaalada Madras kana qalin jabiyay jaamacadda Madras University, takhasuskiisuna uu yahay MSc Information Technology. Ibrahim Maxamed Nuur asagu wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda Sikimarbal wuxuuna bartay Medical Record Science oo ah maadada la xiriirta caafimaadka, gaar ahaan la socodka bukaanka isbitaalka markuu soo galo ilaa inta uu ka baxayo. Shaafici Nuur Calas wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda Cusmaaniya wuxuu bartay maadada e-commerce oo ah maadada ganacsi oo la xiriirta dhinaca teknolojiyada. Cabdiweli Maxamed wuxuu bartay asna sidoo kale maadada B.Com-ta. Jihaan Maxamed Axmed waxay baratay B.Com-ta oo hadda ay ku dhex jaawid weli aysan dhammaysan jaamacadeedii. haddaba ku soo dhawaada barnaamijka barnaamijkan aad caawa martida noogu tihiin oon ku falaqayn doono sida ay Soomaalidu wax ugu bartaan dalka India. bal waxaan rabaa arday si kooban uga warrama xaaladda waxbarasho ee dalka India, maadaama dad badan oo Soomaaliya uu hunguri kaga jiro in India waxbarasho u soo aadaan. waxaan ka hadla xogo waxbarashada ka jirta India anigu u kala qaaday laba qaybood. marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro waxbarashada ka jirta India ayadoo lagu soo koobi karin waqtiga yar oo annaga aan haysano. run ahaantii waxbarashada India waxay kala mid tahay wadamada horumaray ama wadamada hadda horumaraya. xaqiiqatan waxaa jirta waxbarasho aad iyo aad u sarreyso oo laga bartay India. wadamadaas waxay dheer tahay wadanka India. ardayga wuxuu awoodi karaa si fudud inuu maaragtay wax walba u baahan yahay inuu ku barto, sida markaan usoo qaadano mithaal ahaan waxbarashada xagga jaamacadaha, xagga waxbarashada sare, waxyaabo kale oo ama takhasuskiisa khuseeya ama markii waxyaabo kale u baahdo wuxuu heli karaa waxyaabo fudud oo maaragtay ugu baran kara sida macaahidda yaryar aad u tayaysan oo laga heli karo, ama wuxuu heli karaa jaanis aan inta badan dunida aan laga helin oo ah maaragtay ardayga fursad wuxuu ka heli karaa professorka jaamacadda wax ka dhigo oo maadada ama waxyaabaha uu u baahan yahay uu aad ugu fiican yahay, ama senior lecturer oo jaamacadda wax ka dhigo isagoo heli kara jaanisa inuu gurigiisa ama meel cayibna wax ugu barto. markaan usoo laabto qodobka ah jaamacadaha India, waa maaragtay waxaan filayaa in loo baahan yahay in macnaha la fahmo jaamacadaha India ka jira qaybahooda iyo waxyaabaha ay kala yihiin. waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro jaamacadaha qaybahooda oo kala ah waxaa loo qaybiyaa in India jaamacadahooda 4 qaybood. 4taasi qaybood waxay kala yihiin Central Universities, State University iyo Deemed University, Private University. waxaa intaas raacsan dowladda India markay qaadatay xornimada 1947 waxay asaaseen macaahid loogu magac daray Institutes of National Importance, kuwaasi oo kala ah IIT Indian Institute of Technology oo qaybo badan kala ah. markii ugu horeysay 13 ayay ahaayeen, waxaana lagu bilaabay saddexdii ugu horeysay. midkii ugu horeeyay waxaa la aasaasay 1950kii, waxaana laga furay magaalo u dhow yar Calcutta. waxaa ku xigay 1958 oo laga furay Bombay. waxaa ku xigay 1959kii oo laga furay IIT Indian Institute of Technology Madras magaalada Chennai oo aniga aan ka yimid.
waa la sii kordhiyey marka guud ahaan waxaan jeclaan lahaa in maaragtay intaas ay ka kala kooban yihiin waxbarashada marka la dhaho iyo qaybaha jaamacadaha ee daraasada sare lagu barto marka waxaan jeclaan lahaa anigu waqtigu ugu yaryahay inaan intaas kusoo koobo waxaan filayaa xaqiiqatan inaan waxyaabaha ugu muhiimsana inaan ka hadlinba oo aan soo qaatay waqtiga daradiisa waxyaabaha ugu macquulsan ama sida loogu faa'iidaysan karo marka waxaan kusoo koobi lahaa intaas. Assalaamu calaykum. sida aad u sharaxday waxbarashada dalka India iyo heerka adduunka ay ka joogto dhibaatooyin ma jiraan ardada qabsada inta ay ku sugan yihiin dalka India ama ay ku dhex jiraan waxbarashada? dhibaatooyin way jiraan marka laga fiiriyo dhinac marka dhanka laga eego dhibaato cimiladaas ama environmentka intoo kala qabsanaya in dhibaatooyin yar yar ula kulmi kara ay jiri karaan haddii aan tusaale usoo qaado dhibaatooyinka yaryarka ah waxaa ka mid a qofkii inuusan fahmin luqadii waddanka uu yimid waayo waxaan ognahay India waa stage badan tahay state kastana qofka marka uu yimaado waxa uu kala kulmaa wax la yiraahdo local language oo luqad u khaas ah state-kaas laakiin way jirtaa as waxbarasho ahaan in mediumka badanaa jaamacadaha India haddii ay noqonada ama institute wax lagu barto waa English haddii ardayga hore basekiisa uu dhisnaa wax badan dhibaato ma kala kulma xagga luqadaha oo Englishka laakiin waa macquul xagga localka haddii aan taa ka gudbo tan labaad oo dhibaatooyinka waxyaabo kala kulmi kara waxaa ka mid ah dadkeena Soomaaliya annaga waxaa ka nimid waddan in muddo ah iska burbursana maadaama aan nimid waddan kale sida aad kula qabsata cimiladan environmentkeeda xitaa way iska adag tahay waa dhibaato kale oo iyadana iska normal laakiin aan sidaa usii badan ardayda badan aysan kala kulmin waxyaabaha badanaa lagala kulmo waxaa ka mid ah xagga rulalka waddanka u degsan ama sharciyada taasna iyada lafteeda waa dhibaato yar caqabad yar ardayda ku timaada inkastoo aysan badnayn laakiin last one year sanadkii u dambeeyay waxaan dhihi karnaa dhibaatada ardayda Soomaaliya ku timaada waxaa ka mid ahayd xagga sharciyada waayo ardaygu markuu soo baxayo waxaan ognahay waddankeena Soomaaliya dowladdan India kuma leh safaarad qofka uu ka soo qaadan karo visa uu ku yimaado waddankan sidaa daradeed waxay ku qasabtaa mararka qaar in dadku ay ka soo qaataan dalkugalkii waddankani si sharci darraha inay kusoo qaataan oo gudiya cabdirashideey aan wada ognahay qaarkood ama ay ka yimaadaan agensiyo ay ka soo qaataan dalka Kenya oo kale sida lacag badan laga soo siiyo halkan markay yimaadaan sharci ay ku waayaan dad badanna xarig ay ku mutaysteen dad badan ay ku badbaadeen taas waa iska nasiib laakiin dhibaatada ugu muhiimsan oo hadda aan dhihi lahaa mujtamaca Soomaaliyeed macnaha way taabanaysaa waa xarigaas arday badan Soomaaliyeed soo maray iyo qaar badan hadda way xiran una xiran wax sharci darra laakiin haddii qofka sharci uu leeyahay badan dhibaato ma kala kulmo waddankani waxaan dhihi karaa dalkan India waa waddan weyn laakiin gobolka hadda aan joogno AP Andhra Pradesh gaar ahaan magaalada Hyderabad mujtamaca degan aad bay noo soo dhaweeyeen runtii waa dad macnaha waa multinational people ah oo aan macnaha adigan hadda Booriyanka iyo ardayga Indiga markaad wadada maraysaa isku si ayay ula dhaqmaan taas xagga bulshada wax badan ma lagala kulmo ayaan dhihi karaa runtii waa dhibaatadii way iska yartay Soomaalida qabsada intay ku dhex jiraan waxbarashada sheegay saaxiibkii Ibrahim dhibka ugu badan horta Ibrahim uu sheegay oo naga qabsada dhanka waxbarashada India laakiin mid uu nagu hormacnay waxaa ka mid ah waxyaabaha dhibkaas noo keena ama asaaskooda ah imaanshaha qofka India markuu imaanayo imkuu imaanayo xoogaa u saxsanay marka koowaad ujeedadu imaanayaan u saxsanay waxbarasho ahaan inuu imaanayo u saxsan tahay laakiin maada ahaan jaamacad ahaan iyo qiimaha maadada jaamacadda college-ka iyo sidoo kale asagana wax akhbaar ka yihiin qofku markuu intimaa markuu waxay qasbaysaa waxa laga yaabaa inuu kusoo baxay tusaale ahaan maado markeedu uu asaaskeeda ku fiicna markuu intii miliraan waddankan maadaas lagama helo ama jaamacadda India ma bixiyaan ama waa nooc ma iska qaali marka waxay noqotaa inuu u laabto maado kale maadadii kale wuxuu u baahan tahay inuu waqti siiyo iska soo dhiso asaaskeeda waxaa laga yaabaa markuu imaanayo jaamacadii xirmi rabaan oo waqti badan oo si jirin isla markii waxaa u suurtagelaysa isagoo ka cararaya waqti badan meesha ku lumiya inuu hore ka gala jaamacaddii wuxuu soo macnihi marka face garanaya problem badan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay laqabshi la-aan maadadii imtixaanaadkii iyo dhinaca macnihi qoritaanka sidoo kale marka xoogaa dhinaca qofku markuu imaanayo akhbaar la-aan iyo noocma ujeedada waxbarashada guud ahaan ka sokoo midda hoose oo aan jirin oo aan cayinayn yani oo qeexnayn ka mid a dhibaatooyinka xoogaa